iyo TV24. hagaaga daawadayaal barnaamijka wargeysada iyo wakaalaha caalamka ayaad la socotaan markana waxaanu soo gaarnay amintii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii toddobaadkii tagay iyo Soomaalida markana aynu fiirino qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka Yaaqbir Weyne ayaa ka warbixiyay booqasho dhawaan ay markaasi ku tageen gobaha ganacsiga mas'uuliyiinta deegaankaasi uu ka mid yahay gudoomiye Gudcur iyo sidoo kale taliyaha ciidanka Abukur Carab haddaba kulan ay qaateen ganacsatada kadib ayaan telefoonka waxaan kula xiriiray mid ka mid ah ganacsatada deegaanka Yaaqbir Weyne isagoo u mahadceliyay habka markaasi ciidankaasi maamulka ay u shaqeynayaan isagoo faahfaahiyay xaaladda guud ee deegaanka iyo gobaha ganacsiga waxaana aan wax ka weydiiyay marka hore sida xaalka uu yahay walaalo maanta waxaan noo imaaday gudoomiye Gudcur waxaa noo sheegay in ay sameynayaan howlgallo marka ammaanka aad u fiican yahay waa u mahadcelinaynaa haddii nahay shacabka ku ganacsada Yaaqbir Weyne waa u hambalyeynayna walaalaheen aniga geeleyda oo waxaan ka mid ahay suuqa Yaaqbir Weyne marka waa ku faraxsanahay ciidanka Gudcur iyo howlaha ay meeshan ka hayaan runtii haddii iiga ahaan lahaynba ganacsiga ma jiri lahaynba waa salaamaya waa gartay marka laga soo tago imaashaha gudoomiye Gudcur iyo saraakiisha uu ka mid yahay Abukur Carab ka waran maxay idinkala hadleen oo aad noo sheegi kartaa maya waxay noo sheegeen in kulli ammaanka uu fiican yahay ganacsiga iska wadano marka kulli waa ka hadda kulli ammaankana waa fiican yahay aniga geeleydan ka mid ahay kulli suuq caadi u shaqeynaha maya wax dhib male caadi u shaqeynaa ganacsiga waa furan yahay ciidamada jooga waa u mahadcelinayna walaalahayna guuleystaan leenahay annaga garabkooda ma fahanti xubintaas ayaa daawadayaal ugu dambeysay barnaamijkii wargeysadii wakaaladaha caalamka waxay qoreen oo markaasi aynu ku eegnay qodobo badan oo xiiso badan waxaan ugu dambeysay xubintan toddobaadkii tagay iyo Soomaalida anigoo barnaamijka idiin soo jeedinayay asxaabtiga la qayb gashay dhammaantiin isma dhaafnay daawadayaal kulanta dambe amaana Allah